وتاريخديني taxanaha hay'adda madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf madaxweynihii lixaad ee dalka Soomaaliya wana qaybtii afraad oo aynu soo gaarsiin doono aniguna waliba xbarqiye aynu ka sii ambaqaadna haddaba halkii ay noo joogtay madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed waxa uu xilkii madaxtinimo ee dawladda federaalka ku meel gaarka iska casilay 29 Disembar 2008 waxaana sidaas ku dhawaaqay kadib markii uu hortagay xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ku meel gaarka ee Baydhabo waxaana uu warqadiisa casilaada u dhiibay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ku meel gaarka Aadan Madoobe isagoo oo muujiyay in iscasilaadiisu ay sabab u tahay cadaadis kaga yimid beesha caalamka iscasilaadiisaasi kadib waxa uu tagay dalka Yaban halkaas oo uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa Allah u naxariistay madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf waxa uu 23 Maarso 2012 ku geeriyooday magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta dhacdooyinkii waqtiga haddaba ay soo martay Soomaaliya aynu dib u jaleecno June 2006 ayaa maxkamadaha Islaamiga waxa ay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen Muqdisho December 28 2006 ayaa maxkamaduhu ka baxeen Muqdisho markaas oo ay Itoobiya soo gashay caasimadda Soomaaliya markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya oo muddo dheer colaadii ay ka dhaxaysay January 8 2007 ayaa madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf waxa uu markii ugu horeysay Muqdisho ka degay ilaa intii la doortay October 2004 August 2007 ayaa Muqdisho waxa lagu qabtay kulan beeleed oo ay ka soo qayb galeen beelaha Soomaaliyeed kulankaas oo lagu yeeray dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed March 26 2008 ayaa mar kale dagaalyahano ka tirsan maxkamaduhu ay qabsadeen Jowhar August 18 2008 ayaa Djibouti waxa heshiis ku dhex maray qaar ka tirsan maxkamadihii iyo dawladda federaalka ku meel gaarka ahayd inkasta oo ay qaar kale ku gacan sayreen heshiiskii ka soo baxay August 22 2008 ayaa koox ka tirsan maxkamaduhu qabsadeen magaalada Dekedda ee Kismaayo kadib markii uu halkaas ka dhacay dagaal dad badan ay ku dhinteen November 12 2008 ayaa magaalada Marka waxa ay ka baxday qacantii dawladda federaalka ku meel gaarka ahayd November 28 2008 ayaa Itoobiya sheegtay in ay la baxayso ciidamadeeda ku jiray Soomaaliya December 10 2008 ayaa markii ugu horeysay ee laga cayriyay maxkamadaha waxa Muqdisho ku laabtay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo warbaahintu ugu yeertay Islaamiyiinta aan mayalka adkeyn waxaana la sheegay in wixii ka dambeeyay cayrintii maxkamadaha ee Muqdisho ay Soomaaliya ku dhinteen dad badani December 14 2008 ayaa madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf waxa uu sheegay in uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaarihii dawladda federaalka ku meel gaarka Nuur Cadde isaga oo u cuskaday in xukuumaddiisu ku guuldareysatay wax ka qabadka ammaanka dalka maalinkii xigtay ayaa waxa la sheegay in baarlamaanka dawladda federaalka ku meel gaarka ee Baydhabo fadhiday ay xilka ku celisay Nuur Cadde inkasta oo filim laga duubay muujinayay buuq iyo sawaxan in uu kulankaasi ku dhamaaday December 16 2008 ayaa madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Gacmo Dheere December 24 2008 ayaa Gacmo Dheere waxa uu shir jiray oo uu ku qabtay Baydhabo ka sheegay in uu iska casilay xilkii ra'iisul wasaare isla markaas waxa soo baxay oo uu sheegay afhayeenkii dawladda federaalka ku meel gaarka in madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf uu iscasili doono December 27 2008 halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa taariikhdii Cabdilaahi Yuusuf